salaan kadib haddii aad tahay qof hore u bartay IT-ga ama hadda doonaya inuu barto ama ay meel dhexe u marayso barashada IT-ga waxaan doonayaa inaan halkan kugula wadaago dhowr qodob oo ku saabsan faa'iidooyinka ay leedahay inaad barato IT-ga annagoo ka fiiri doona dhinacyo kala duwan. hore haddii aan u sii galo aan ka bilaabno IT-ga haddii aad baratid waxa uu kuu furayaa albaabo badan oo fursadeed oo ay ugu weyn tahay in aad ku shaqaysato. IT-ga markii aad bannaanka ka joogto waxaa u moodaa inuu yahay wax aan macno lahayn, laakiin markii aad gudaha u soo gasho waxaad ogaanaysaa in ay tahay arrin aad u ballaaran, fursado badanna ka jiraan. haddii ay adag fursado shaqo in aad darajo ku hesho, maxaa yeelay sida la ogyahay qofka wax yaqaana iyo qofka aan aqoonin isku mid ma aha markasta. haddii aad dhowr qof shaqo ku wada raadsataan, kan IT-ga yaqaan iyo kan aan aqoon isku mid marnaba ma ah. mida kale dad badan waxay u haystaan IT-gu inuu yahay kombiyuutar la gargaraaco uun iyo wax la mid ah, laakiin IT-ga waxaa soo hoosgala intaas oo baranji. farqiga u dhexeeya computer science-ga iyo information technology-ga mar kale ayaan ka hadli doonaa insha Allah, laakiin hadda waxaan xoogga saaraynaa IT-ga information technology oo ah sidii looga faa'iidaysan lahay kombiyuutarada iyo waxyaabo la halmaala in lagu aruursho macluumaad, lagu kaydiyo, lagu shaqeeyo, go'aamo lagu gaaro si loogu hormariyo ganacsiga iyo hay'adaha iyo wixii la midka ah. faa'iidada kale ee IT-gu leeyahay waxaa ka mid ah inaad la jaanqaado dunida iyo meesha ay u socoto. isku si uma hormari karaan qof information technology-ga ummi ka ah iyo qof yaqaan, maxaa yeelay maanta information technology-ga wax kasta ayaa isticmaala, haddii ay ahaa lahayd isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, militariga, dowladaha, ay nuuc. meel aan IT maanta aysan ku jirin ama aan looga faa'iidaysan ma jirto. marka inaad waxaas oo dhan qayb ka noqoto iyo yaa kuu fiican inaad bannaanka ka taagnaato oo daawato. waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha aad ka faa'iidayso barashada IT-ga inaad maskaxdaada dhisto. fikirka waa wax la tijaabiyey in barashada IT-ga iyo waxyaabaha la midka ah ay kordhiyaan aqliga iyo fikirka iyo go'aan gaarista iyo si qoto dheer oo loo fikiro inay garab kugu siinayaan oo maskaxdaada korinayaan. waa wax la tijaabsho oo la ogaaday. IT-gu waxuu kuu fududaynayaa inaad si fudud ku qabsato howl aad sanado ku qaban lahayd ama muddo dheer kaa qaadan lahayd inaad qabato ayuu kuu fududaynayaa. waxaa laga yaabaa wax aad diyaarad u raaci lahayd inaad fadhigaada ku qabato, ama aad gaari u raaci lahayd, ama aad safar u geli lahayd, ama shaqooyin ay qaban lahaayeen intaas oo qof inaad qabato ay kuu fududaynaysaa. muhiimadda kale oo ay leedahay inaad barato IT-ga waa raaxo. marka aad gudaha u gasho waa wax lagu raaxaysto, waa madadaalo. waxyaabo badan oo aad ku madadaali lahayd ama ku raaxaysan lahayd ama aad waqti ku bixi lahayd ayay kuu beddelaysaa. maalinta aad IT barato waxaa laga yaabaa inaad dib dambe aada u caajisin ama aada madadaalo u baahan ama ayba taadu kaa badato. faa'iidooyinka ay leedahay barashada IT-ga aad ay u ballaaran yihiin, laakiin dhowrkaas qodob waxaa ugu talagalay in aan yara ku dareensiiyo in ay muhiim tahay in aad barato IT-ga. maanta in aad wax barato aad ayay u sahlantahay. meel kasta ayaad ka baran kartaa, WhatsApp-kaada, YouTube-kaada, siyaabo fara badan ayaad wax u baran kartaa adiga oo meel la aadin oo hawshaada iska wata, shaqadaada iska wata, ilmahaada iskala jooga, xaafadaada ka shaqaysanaya ayaad wax kasta baran kartaa. laakiin waxaa la iska rabaa waa go'aan inaad u dhaqaaqdo wixii. waana ogaa doontaa haddii aad maanta go'aan qaadato in aad barato IT waad mahadi doontaa. waxyaabo badan ayaa kuu fududaa doona, waxyaabo badan oo aad hore u fahansaneyn ayaad fahmi doontaa. haddii ay ahaa lahayd xagga isgaarsiinta, xagga fikirka, xagga tayada nolosha, dhinac kasta marka aad ka eegto waad ku faa'iidi doontaa. haddaba qof kasta waxaan kula talin lahay in uu barto IT-ga. macnaheedu ma aha inaad jaamacad dhigato ama iskuul gasho ama wixii la midka ah. IT-ga haddii aad barato darajo ayaa kuu kori doonta. maanta hebel waxaas ayuu yaqaanaa, IT ayuu yaqaanaa, ama hebel ayuu yaqaanaa. waxa ay kuu kordhi doontaa darajo, waxaana ay kaa sarraysii doontaa asaagaada. haddaba waxaan kugula talin lahay inaad barato IT-ga. asalaamu calaykum.